الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الإخوة الأكارم، محاضرة ugu horeysay ee mu'tamarka cinwaankeeda la ii soo gudbiyey waxa uu yahay الإسلام بين جهل أبنائه وعداوة أعدائه، oo islaamka iyo dadkiisa siday u degan yihiin iyo dibindaabyada lala damacsan yahay iyo hagardaamada cadowga ay la damacsan yihiin dadka muslimiinta gaar ahaan da'yartooda. mowduuca aan caawa wadaagi doonaaye waa mowduuc xasaasi ah, muhiimna ah inaanu ku baraarugno. waxaan ku faraxsanahay dadka kelimadda ay ku socoto ee ah da'yarta dadka muslimiinta ah caawa 99.899 inay hor fadhiyaan. aan isleeyahay fariinta waad gudbin kartaa si dhagahooda ugu dhacdo. waxay kelimadeenna isku sargoyn doontaa 3 qodob. waa mida waxaan rabnaa inaanu milicsano historic background, halka kan meesha ay ka yimaadeen. waxaan rabnaa inaanu tilmaanno mukhatataadka ama tallaabooyinka hagardaameed ee laynoo diyaariyey si markaa laynagaga marin habaabiyo islaamkan aanu geedkiisa hoos harsanayn. ta saddexaad, waxaan rabaa in waxa aan sheegay ay noqdaan facts and figures, itus oo itaabsi, oo ah wax ku salaysan cilmi baaris la sameeyey iyo waxa laga hadlay inay yihiin wax sugan oo dadkii sameeyey xitaa iyagaba ay qirsan yihiin. saad ogtihiin ikhwata alakaarim, laga bilaaba maalinkii uu islaamka waaga u bariyey ilayskiisaan maanta bidhaamayana uu soo ifay ila al'aan, dadka cadowgiisa ah ma harsan mana hergelin. waxay inta ay ku jiraan inay la yimaadaan tallaaba tallaabta ay ka adag tahay, tallaaba tallaabta ay ka duusan og tahay da'yarta inay la yimaadaan bay isku dayaan. si dadkan muslimiinta ah ee islaamku uu ku weyn yahay oo qalbigooda islaamku u furan yahay, si dadkan muslimiinta ah ee duuril cibaada sida kan aanu dhex fadhin oo kale camirayo, si dadka muslimiinta ah adduunyada daafahda isaga kala yimaada ee xaj soo aadayo, sida dadka muslimiinta ah meesha aad ku aragtid laa ilaaha ila allah leh, sida dadka muslimiinta ah oo dumarkoodu xijaabka ay xiran yihiin, raggooduna ay yihiin dad iyagu multazimiina, si dadka loogaga fogeyn lahaa waxaa la maray wax alla wixii ay koosgarayn karto. ilaahayna qur-aanka waxa uu ku yidhi: ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل لها أن يوم مسلمين تأهين وحا أي بحينيان حولا انت آدياد تربضا أموالهم هدي ليل حوله هذا من أموالهم ماها باجت لغو تلقى بقولكن إلى مليون يسدح بليون يأفر تريون ما ينفقون أموالهم. وجد كأي كليهين لعقها تربضا ibaajyadada ay dowladaha waaweynu abruuf garaynayaan wax kale maaha liyasuddu can sabiili illaah, in dadka waddada ilaahay isbaaro loo dhigto, aan masaajidda la gelin, oo xijaabka aan la xiran, oo qur-aanka aan la xifdin, oo kitaab ilaahay aan laysku camalfalin, oo dastuur ilislaam aan laga hadlin. laakiin ilaahay wuu inoo sheegay, wuxuu yidhi fasayunfiquunaha, iyagu way bixin doonaan, way ka go-an tahay. maaha mashruuc hadda la hindisaynaya maaha, oo wax go'an weeyo meel ku qoran,
لكن إلهي وحو نوت المما ثم تكون عليهم حسرة قوممو يشلايتي كن نقندون ثم يغلبون إيجانا نقندون they will be beaten bad إيجانا لغا تجي دونا وضدا أو لغا أتكان دونا إلهي سبحانه وتعالى ونو شيء الضبا إنك أوشين سنينا بشارة ربي إنه قدام بين لبتو إنك إنوسو هو يندونتو إنك أمين سنينا بشارات كالنبي قوت المامي أو يروردين كان مالك السجارة قري مجره أما مدرها كسم إسناده أما وبرها كسم إسناده إلا إسلام كوجلي دونا إلا أكير النبي صلى الله عليه وسلم وروح على جاري دونا ضدك إني آمن أي هلان أي لجاري دونا وهو إنه أنت إسكسفرت يده حبأ أنا كبقنين بشارات كالنبي قوت المامي قار كميله نهاري لوصو أركي إلا فرت كسرى إلا فرت معركة ماشي كسرى إلا فرت مالي كالدون فرس إيو لصو أركي هدنا ولي وحا آنو أتاقنا بفارغ الصبر أن كسوغينا إنه يقينسا إن بشارات كاسو مالين أو حقيقة بدونان لكن أين هالمامين قبت مركز جرتو إلهي قرآن كوحو كليه وتلماما يريدون ليطفئوا نور الله وحي رمان إني بختيان أو أي دميان إفتين كان بحيا إسلامك وعلى ديدا كاغا يا سيدي تبن جركة كلا تنجركة قبلنا لبا تنجركة مدني وسجال تبن جركة مسجد كسوق جليس أي وعلى الربا إنني الباب بدن أني سوق جلين وهلك أي دول طوبانا يان أي نقطة الباب بدن ديسكوتيجا بارك خمرضة ماشى الدعارة اللي وصميه ماشى بني آدم كلو كلقته هل كاسا الذي للربا إذن ودي دنتين واحد ليدي وحنو قلنا بيت الله جل وعلا وحانو رمنا إنا نقلنا ذاتك إله ويري إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا إيش من المهتدين هل كاسان رمنا بعد إذن كل يدين هل ضبا يضا سائتا وحرمنا إنا نقانو وحا ينظم بين دون بإذن الله سبحانه وتعالى وحوالا ليال برارجين مضان إن وعدو ومري استراتيجيات كلا دول هدي نقول لهيد مid يدو عقلي ومانك لما علي هدي يدو نقول لهيد مid قرالة لغفولي هدي نقول لهيد مid يدو هنجبادة هدي نقول لهيد مid يدو manifestations وحمانت وعدو إسكاه المامي مركي وإنفر بدن وكجول دريستي إنه ضدك ومقوني militarily ومعناها أسكر وكانوا مركو قوسي بوحو اسكدي halka kaliya ee dadka muslimiinta laga adgaan karo waa in aanu maskaxda kaga duulnaa oo marka duulaan maskaxeed baa yimid ama waxay dhahan intellectual invasion ama waxay dhahan al-ghazw al-fikri adoo meeshaada fadhiya baabahalkan yar ee gacanta inoogu jira oo mar walbaba aan meel marka u sii rogrogayno isaga ina rogayay meeshuu doono naga ridaya wuxuu doono inuu noo sheegaya ninkii marka shalay bixinayay thousands let me say billions of dollars ujeedadiisu ahayd inuu dad oo wiiqo islaamka uu ka leexiyo maanta ma baahna maxaa yeelay sidoo ku hagilaa isaga yaqaan waa qodobaan u bixi doona haddaba waxaan rabaa marka inaan tilmaano 5 qodob oo takhtiita ama 5 istiraatiiji oo aad iyo aad u culus bay mareen dadka aan muslimiinta ahayn si loola dagaalamo islaamka 5 qodob markaan darsiga ka baxo waad ogtihiin inaan dadka weydiin dhaho qodobka koowaad muxuu ahaa marka hoos ka xariiqa barakallahu fiikum haddaba biidin subhanahu wa ta'ala saad ogtihiin quraan waxa soo maray القرون فربنا بين صوم مرتي ما أنت الإسلام كحو مريا كوني أفر بقول إيو جوجا أبو مريا ما نبغى المال بمركز صوت تاجنا سأل الله سعتان حاله المال مركز تاجنيت هذا بقى وح إلهي سبحانه وتعالى وقدره إسلام ككبة هاي هذا نقول هاي مركز هراء إنه وحنوجين آسيا وضمضة مسلمين تا وحنوجين أفريقيا وضن كانوا كم دي هاي يوضن كاني أنا كنمد وحنوجين لكن ما أنت سأسعد بروح تجي يوروب سأسعد بروح تجي أمريكا سأسعد بروح تجي أستراليا قارد مجرته إلا واحد مقليسا كلمة لا إله إلا الله ولذلك 24 hours أو صامرة أفر لا تنسى عضاد أو صعد الساء وريكته every second البرقس والبابا ما البا إله إلا حسية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلس حي على الصلاة بعد مقليسا مركز سادتك ساه مساجد أوجر ميان حي على الفلاح بعد مقليسا مركز نيول بيعوا ليه فلاحا للشيء اللي يسوق يري بل إنه أن نحكي هذينه ماشى إلهي سبحانه وتعالى الإسلام كما أنتوا جارسي هالضبا دبا مركز الله بنا نواتي أنو بلنت أنو كل هاي نون من التاريخ أن ينكه لنا
tallaabta ugu horreysa oo cadowga uu qaada waxay ahayd markii khilaafadii ugu dambeysay ee loo yaqaan alkhilaafa alcuthmaaniya markii uu markaa iyadoo dhanba uu barabixiyey alkhilaafa alcuthmaaniya khilaafaad fara badan baa soo jiray laga bilaabo khilaafat abi bakar khilaafat cumar khilaafat cuthmaan khilaafat cali adigu soo wad khilaafaad kala duwan ilaa marka dambe tii ugu dambeysay alkhilaafa alcuthmaaniya oo meesha ay gaartay caalamka ma jirin meel ka mid ah dowladaha muslimiin meel kastaba ha noqoto iyadaa maamulaysay baasabooro la iskuma qaadan jirin ID lama baahnayn in lagu yidhahdo halkee ka socotaa intee u socotaa in lagu yidhahdo ma baahnayn in lagu weydiiyo ma Soomaali baa tahay ma Suuri baa tahay ma Falastiini baa tahay cid ku weydiinaysa markaa ma laha wala iska socda un kaliya waagaas marka dhul walba baa dhulkaagu u yahay uma baahnid inaad tahriibtid uma baahnid inaad magacaaga ahayn aad raasatid uma baahnid inaad ID kale aad raasatid halkaasay marka maraysa walihan marka waxaa ka go'naa waxay yiraahdeen si islaamka kan aanu u maamulno waxaan rabnaa inaanu ka takhaluso khilaafada kitaab waxaa jiro lagu magacaabo kayfa hudimat alkhilaafa sidee khilaafadii islaamiga ahayd loogaga takhaluso qofkii aqri ajaa'ib marka leeyahay in yara marka tilmaamayna ciidamo huwan ah oo isu soo bahaystay oo lixaad leh caramram ah ay ka mid yihiin ingiriiska yunaanka oo greek italy faransa ayaa waxay weerar ku soo qaadeen dhulalkii الدولة العثمانية هوس إيمانية ويربع الوساقات أنت الدولة أنتري محي هايين وحنريكو محنري إنجليزكا هاي غريكا سدح إيطاليا أفر فرنسيسكا هل كي وير الوساقات دولالكي أي هيستين ضدك مسلمين تأما الدولة العثمانية هذا واحد مركا واحد governatory politically ميلا معمولة دولة مسلمين أي ماموش هل كاسا وير الوساقات مركي أسيس أي دعدا كدب meel walba oo ay الدولة العثمانية ama khilaafadu ay ka jirtay gacanta lagu dhigay oo ay ka mid tahay Istanbul oo caasimadii laga maamulay dadka muslimiinta ay gacanta lagu dhigay taa markay dhacday kadib ayaa waxa la yiri hadaba waan hala galo hala hadlo iyagu marka ugu horeysa markii diyaaraddu ay ka kor timaado markii inta la burburin kale la burburiyo markii laga taqoolsa waxa la hadaba let's sit around table haddaan wada fariisana marka adiguna shardigaaga sheeg aniguna shardigaaga sheegaya kadib waxa bilowday wixii loo yaqaan negotiations aan wada hadal sameeyno walidaalika heshiiskii wada hadaladii ka dhacay Lausanne ila aan taariikhi ah oo qofkii maanta meesha tagan uu arki karo ayaa bilowday kadib waxa la yiri okay ingiriiska marka isaga markii kuwa ugu weyn ah quwadkan huwanta ee taxaalufka ay soo bahaystay ay raba inay iyagu marka ay dibindaabyada u dhigaan ama ay wiiqaan الدولة العثمانية iyaga ugu weyn waxay dhaheen marka anagu shardi baanu galina Turkiya ma doonaysa inaanu meesha uga baxno ma la rabaa in الخلافة العثمانية ama الدولة العثمانية maamulkeedii iyo powerkeedii inuu noqdo ma aragtay mid isagu boundaryless aan xuduud lahayn oo iska shaqeeyo ma la rabaa shuruudan wadana shuruudahan laga oofiyo shuruudan ikhwaani wa shuruuda maanta maalinkii la aqbalay ila الآن halka maanta aanu taaganahay waa shuruuda ina baday in maanta dhaqaalahana meel kasta uu gaaro inaan inaga maamulan weyno shuruuda bay ka timid in miidiyaheena maanta inaga aynaan maamulin shuruuda bay ka timid in dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan ay noqdaan dadka markii illiteracy rate markay noqoto dadkan waxba qorin dadka ugu badan inay noqdaan in maanta la yiraahdo marka laga hadlayo dib u dhac iyo dad wax qabsan waaye iyo dad aan production lahayn iyo dad yaryarkoodu iska daalan yihiin dad qaxaya meel ay u socdaan meel ay ka socdaan aan ogeyn dad program loo diray maalinkaas shuruuda marka la aqbalay from day one maalintan niri shuruuda waanu aqbalay maalinkaas uu dubaha inagu bilowday halka maanta aanu taagana halkaas uu bilowday shuruudii baan idin deynaa bi idin subhanahu wa ta'ala hadaba shuruudaas waxa kamid ah kow waxay yiraahdeen horta wax khilaafa la leeyahay oo maamul islaami lagu sheego horta waa in la waayo xagga naga dhiga ninka maanta khaliifatul muslimiin aad ku sheegaysaan ee Turkiga hoyga u yahana waa inuu cagaha wax ka dayo meesha uu ka tago shardiga koowaad kaas oo ah shardiga labaad Turkiga waxa la soo hordhigay mashruuca inay aqbalaan ajenda ah in ay ka hor yimaadaan dhaqdhaqaaq walba
isagu u ololaynaya khilaafadii yani haddii any movement you name it mid ku doono ha noqdo uu ku jiro dareen ah khilaafadii ha la soo celiyo diin ha laga hadlo in markaa ay Turkiya tallaabo sharci ay ka qaado haddaba Ingiriiska isagu gadaal buu taagan yahay anigu ma hadlaya buu leeyahay wala Faransa isaga naadiq rasmi hadlaya gorgortanka isaga ku jira he's the one bargaining on the table isaga fadhiya wax xariiqay wuxuu leeyahay any movement dhaqdhaqaaq walba ee diineed ama xarako walba ee dhaqdhaqaaq wadata ujeedadeeduna ay tahay inay dib dambe u soo noolayso al-khilaafa al-islaamiya oo maanta meel aan ku ogaanay waa inay Turkiya shaqo ka qabato shardiga muxuu yahay shardiga waa shardiga labaad qodobka kale ee saddexaad ee meesha la keenay waxay tahay Turkiya wax islaam la leeyahay waa inaan xiriir la yeelan macnaha inuu jiro a full disconnection with the Islam oo dhanba in xiriir la yeelan saadarteed waa markii la keenay ninkii la dhihi jiray Kemal Atatürk halkaas la keenay waxa uu dhigay wuxuu islaam ku dhigana taariikhda way soo xigatay meel kasta inagu qoran tahay isagii waxa lagu bedelay ninkii kale ee meesha joogay jumhuuriyaddii islaamiga ahayd ee la lahaa waa islaamna waxa lagu bedelay mid iyadoo secular ah secularka waa noo iman doonaa waxaa laga wadaa almaaniyada ama secularka waxaa laga wadaa islaamka iyo diinta la sheegay 40 geesood ee masjidka ku ekaado antu tukanno kii forsan laha kii wardin laha isay u taal laakiin marka banaanka la baxo islaamka aniga shaqo iguma laha haddaan doono khamradan cabaya haddaan doono waa zinaysanaya gabadha haddaan doono isqaawinaysa waxaa la furaya meelihii dacaradaha la furaya meelihii tumashada la furaya wixii la doona la samayn kara islaam ma la rabaa ha waxaan rabnaa arrinkaa la yimaado arrinkan wuxuu dhacay waxaa laga soo waariday markii qarnigii 18aad ee nimankii rijaaludiinka lagu magacaabi jiray masiixiyiinta ay ku kaceen dadkii ay ku kaceen oo yiraahdeen maanta aanu ka takhalusno oo aakhir qisiis aanu ku dilno ninka markaa jooga isagu qaysarkii markaa joogay waa tii ay la dagaalameen markay la dagaalameen diinta masiixiga banaanka la soo dhigay ayaa diinta waxa la isugu keenay churchiga la isugu keenay kaniisadda baa la isugu keenay axadda afar nin ay galaya maantoo kale 25 ay tahay baa la camiraya kaniisadaha intii ka sokaysa Soomaa nin masiixi diin maanta shaqo ku leh male wax ay daneynayaan male afar odayn baa soo hartay tii marka dibkii iyaga soo gaaray ramatni bidaa'iha wan sallad buuri ninkii gabyaaga ahaa cudurkiiba intaga in loo soo waarida waxa la rabaa masaajideena hadiiba la isku imanay maalinta ciida kaliya in la isku yimaado waba hadii la isku imaanayo inta ka dambe la waayay laakiin bal arag Allah subhanahu wa ta'ala thumma yughlibun markuu leeyahay waxa lagu jiraa salaad maqrib iyo cisha inta u dhaxaysa nuurkaasa masaajid ka baxay ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa way tan way tan la diiday laakiin maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tahqiijiyo Allahu akbar haddaba inta marka la yiri oo meesha la keenay ninka muxuu bilaabay marka waxa dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray in la yiri gabar iyadu xijaaban karta marka malaha gabar xijaab la iman karta marka malaha fatwada sidaasa amaba qaraarka waaga la qaabtay maalin buu soo noolaadaa وبحا وصلنا دب ما الله صنع له نمبر الله وحى إلهي سبحانه وتعالى قدره مصحف كي قرآن كادتك هرتودين لقو جحجح وحو إلهي سبحانه وتعالى هدنا قدر إلا يراهده وح الله وحي مدارس إسلامي سكولس وح الله وحي يونيفرسيتيز أما جامعات إسلامي هرت الباب ده الله يحره وعقال الله لدى قال لما اللغة العربية ما حيلا وحى الأجي هي the more قفك اللغة العربية وكحرية the more إسلام كانوا وكحرية ما هي اللغة العربية وترجمدي قرآن كو ترجمي لهيد إلهي سجير قرآنا عربيا بلسان عربي إلهي سبحانه وتعالى سجير وحلا مركا لا قال اللغة العربية وحآدي اللو بونبوني لغات كي أفرنجيجا قفكو حالا روا مركا إنه إسلام كي آدي بقفو هذا طلابتا مركا إيقاذين ولذلك وحو ليه كوريزون أو نينكي إساقو أها وزير كي أريمها الدبادة إنجريس كإيواغا أها أيا وحيري لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم تركيا مالبان اسكسر نبيري وحنا دعي دونت دبدن بيناني وهن قندونين مدح سرا وقادي دونين بيري markaas wuxuu yiri laba arimood baan kala dagaalanay si aan meesha u saarnaa buu waxaan kala dagaalanay buu islaamki waxaan kala dagaalanay buu khilaafadii labada baan kala dagaalanay meel baan u saarnaa buu wad arkaysaa maanta dhaqaaqan maanta maalmahan yar ay dadku xogaa ay nooca ma ay diirsanayaan waa inta yar tasriixaad kan Erdogan meelaha ka maqashaan way wa illa waxa la dagaalamay si aanan caadi ahayn arka inaga maanta xor baan nahay wallahi alhamd marka la xajinayo da'yar oo inaga maaragtay dadkeenan meesha idin muuqda
oo da'yartiina un baa soo xajinaya halka wadamada kale qof 50 jira iyo 60 jira oo isagu u baahan in gacanta la qabto ayaa meesha imanaya wala la dagaalam inta la dagaalami karo in yaroo soo hartay oo quraanka uu aqriyaysa laakiin xorriyada inagu aan haysanay ka haddaan nahay muslimiin oo Soomaaliya dadka kale ma helin wuxuu yiri marka ninka wasiirka hadlay wuxuu yiri waanu ka guuleysanay buu yiri waxaanu kaga guuleysanay iyadoo laba arimood oo labadii arimood ugu cuslaa islaamkii khilaafadii inaan meel saarna buu yiri halka marka waa meesha loo sabciyay iyadoo wax alla wixii meesha fadhi baarlamaanka waa loo sabciyay maxay waa nin dagaal tagay dagaal markuu tagay kadibna lib soo hooyay iyagu sida qaamuuskooda ku qoran in loo sabciyo way tahay in marka la soo dhaweeyo way tahay waxa la yiri ninka kawaanin haliyay تا واتن كل عضي الخلافة الإسلامية إلا يسقر يودا dreams أي نقطة aspirations وان هلي دونا أي ما أنت أفكي إنه جالس صهرت لكن واحد صار دوما نمبر لب قطب كلابات كاسوا ميد يسقو level جارسيسن state كه أما الدولة جارسيسن وحلا جيابا أني أدي مسؤولية ده إننا لهين أو إسكال ليهين ضد إليت حل أو لبان أو يجو سياسيين أو policy makers ومدي هجانك وقاعد يكر إني ليهين أني أدي ما لهان كرن لكن أني جاي أدي إلما يري جوري إنه جوجا يهوين إذا مسلمات ده إسلام كذا أخذ بينيسا ميت كلا أيال الناس ميو وحال يري طلبات تيكو واد محي هاي خلافة إن لقى تخلص طلبات وام محي إن قرآن كان لقى تخلص قرآن كانت أركيسان وحيدهن بقدين بدن بونقوحيا وهالك كل مسلمين تو قبل نمذو يكجرتو مركان قرآن كجمعه كحيو بنون كلبحنو أيان نمن كاسو جنما بدي دونا بير هذين كو كدي وحيدهن أنت قرآن كان يكود جيهين أو ميدير القرآن وأقرنيه هوين القرآن يقرنيسو مدارس أي فريهين لسوع العلنيو مصاحفة مساجد يكون عمريهين انت بتراويح لو تكنيو انت ترتن قرآن لقبانيو انت وحل حفظينيو انت تاسو اي جرت ولي قطرت اسلام كان نوهي ولي ما ينضمان بيدهن هذا القرآن كان كتخلصنا ولذلك هو حضلي نيك اللي يجري جولستون هذا الكيس هذا قرن امالك قرن وعليه ما دام القرآن موجودا انت قرآن كبأجره مسلم القرآن أقرنية أنت أجربه فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق أوروبا أما يوروبيان أود وما يلندونان إني مقونيان أما أي كأتكانان أما النفوذ أي كياشان شرقية طبعا وحاجة الترمينولوجي أو political اللي استعماله هدي اللي يراهدو هدي مثلا وستيق اللي يراهدانا ضدك عن مسلمين تهم بقول عبادنا إنك صاد مسلمين بدنا دقيقين هدي إيست اللي يراهدانا ضدك مسلمين تقولنا إنك صاد قال أي دقيقين لبضا ترمبال استعماله مركز سوحيري ولجينا أمان ما في الدون إن هل الدون أنتوا قرآن كأجروا نك حنون كوهاي أرك يعني واحد حنون كوهاي إنه أرك يرك ما أنت إنه أرك إن القرآن كعطي قروح كأقرني أدب ودبه إلا أرك international Quran competitions أو ليسوقي ماذا دولي حنون بكر ده إن أركان مساجد بحدا لا أو أنت لا أو ضدك سأوصل بحين نبوا كوهاي أنت الأرك يمد قرآن أقرني هل كاوي مركب واحدين أنتوا قرآن جربة إنكم يستايكر لكن إلهي سبحانه وتعالى استجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنك إلى لنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لفها اللي وقر جري جدار هذا اللي وقر جري جد علامات اللي وقر جري وحل وقر جري هرجع اللي وقر جري كدمنا وحل وقر لا بها رجع اللي وقر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوص عطيه دوش مركي حفديان ما أنت كمبيوتر إنه وجرا iPad-dan ku sidana mobiladan ku sidana any device you name it midku doon han noqdo quraanka ku qoran yahay electronically buu xifdisan yahay isaga electronic in baa la xifdisan yahay waraaquhu ku qoran yahay waxaasna waa ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa way ilaahay isaga yiri we will keep it in preservation inaga ilaalinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala idka hor iman karta marka mala halka marka ay tahay hadaba waxaan u baahanahay marka waxa aanu tilmaamayno waxaa la rabaa inaan wax kala baxno wey ninkan quraanku diidan yahay Soomaha hadaba quraanka inaan noolayno nin kasto inaga naga mid waxaa la rabaa inuu la dhinto iyadoo qalbigiisa quraan uu ku jiro ma ogtihiin yaa ii sheegi kara amalka keli hatta salaamada adduunyada marka la joogo adduunyada waa amal aakhirana waa xisaabtan Sooma oo hadda salaad halkan inaga haraysa oo soonka halkan naga haray xaj dambe ma jiri doono laakiin amal waxa jira marka la dhinto xataa soconaya عمل فلكيس اللي سكوا أبا المرين واكه القرآن محايا النبي يقول اقرأ ورقة أقرأ أهرأ أسسع فول سلامها جنة
meesha aayadda ugu dambaysa ay kaaga dhamaato quraan booska uu noqonay marka leeyahay quraanka marka in xoog la saaro way waliyaalka wuxuu leeyahay nin mubashir waxa weeye waa evangelist waxa laga wadaa waa wadaad diineedka masiixiga يعني waxaa jira waxay dhahaan al-irsaliyat at-tabshiriyya ama evangelization waxay u qaabilsan yihiin sida dadka muslimiinta looga dhigi lahaa munassariin loo tansiirin lahaa masiixi looga dhigi lahaa islaamka looga saari lahaa ninka isagoo hadlay wuxuu mubashir waa idoo lagu yiri mesela wadaad baa wuxuu yiri caalim diineed baa wuxuu yiri oo kale evangelista uu hadlay wuxuu yiri hadal uu yiri waxa la dhihi jiray William Balgraf hadal macruuf uu yiri wuxuu yiri mata tawalla al-Qur'an wa madinatu Makkah an bilad al-Arab يمكننا أن نرى حينئذ العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم عن كتابه هدي أن كجو ليس النبي أنا أرجناه قرآن ككو هي مكة المكرمة للشيء مدينة للشيء مركا أن كسرنا قاموس دولارات كنينك عربي وكذا نينك مسلم كولجي ذا وأن بضنه إن وكسم بالرحضة البحنمada reer galbeedka maanta ay soo cardiyeen oo suuqa ay keeneen oo iska ah community-ga maanta inoo muuqdo haddaanu taa ku guulaysanno buu yiri awood waxaan u yeelanaynaa buu yiri nabi maxamedna inaan ka fujinno kitaabkan quraankan inaan ka fujinno buu yiri ma ku guulaysan mise kuma guulaysan idinka idin weydiiyey waa maanta waxaad arkaysaan weeye maxaa yeelay in maanta fakar walba ee soo baxo fakar walba ee laynoo soo gudbiyo wuxuu ku wajahan yahay oo kaliya مسلمين تن كعبدن كوين هرت إن حريرك الله جرو المدينة المنورة للشيء حريرك الله جرو قرآن كحريرك الله جرو واحد دليل أهم واحد أركيسا ما لها يكتلينا مدارسها وحلا ليه مدارس القرآن هل حرو مركي قرآنات ما دام أنا كل يرن كان القرآن كهلا جوجي كلين مناهج قرآن كريكولم كقرآن ما كريكولم كي اللي الربي دتك تربيين لها كريكولم وحا كجرا حوجا وحا كجرا كبدبدين با كجرتا اكستريميزم با كجرا وحا كجرا حقنيمه كجرتا حوجا يركن هلا بدل كان هلا بدل طبعا وجهده اوكي وحك فكر كي ولا بدلي كرا وخلدمي كرا صحن ونقون كرا كاغا ولا بدلي كرا شيخ صاد لك فكر كي صحي غلط ونقون كرا لكن القران با بدلي كرا قران كإله سبحانه وتعالى اساس اسود الجو هدي اي كوضان the interpretation of the holy quran قران كترجمديسا laga wada haday ka wadaan hadaba quraanka inaga iskama fasirayno quraanka waa la fasiray in the light of the predecessors salaf hadi al-umma say u fasireen baan u fasirayna oo nabiga ugu horeeyo oo saxaabadii ay ku xigaan oo taabiciinta ay ku xigaan oo taabiciinta ay ku xigaan ragii ugu waaweyn exegesis ka leh oo imam at-tabari imam al-qurtubi ibn kathir ragaa waaweyn tafsiirkay saareen baanu saarayna laakiin tafsiir aniga ila quman oo aan ujeedo gaara ku qunsanay anigu lama iimanayo iyaguna iguma qasbi karaan tafsiirana saxan halka waa macnaha markaan u baahan wuxuu leeyahay marka ninka la hadlo wuxuu leeyahay marna biiri hubka seefta ama hubka ugu culus yaanu nimanka iyaga baaba kaga dhigi karno wuxuu yiri waa ko horta quraanka aan adeegsanay quraanka aan ku garaacno islaamkan aan ku garaacno hadal buu si kale u dhigay wuxuu yiri idbahu al-islam bisikin al-islam islaamka gowraca waxaadna ku gowracdaan sakiinta islaamka ku gowraca walidaalka wax kale maaha waxa lagu leeyahay marka aayad la keeno wadaad kale lagu keenaya isaguna si kale u fasiraya حديث بالكينيا وذات كلا سيكلا أفسرها لكينيا مسألة واتن كانتي إن وذات هذا مدح ليسكو جليو واتن كانتي إن مدارس إسلامية فكرية مدح ليسكو جليو واتن كانتي حركات إسلامية الدعوة وشقين مدح ليسكو جليو مالي أنت كدام بس ولا شقين محايا لو حيوجين إن واحد نبى يمدين ولذلك لابد يكون يسديدي وحاجرة قلنا أن يكون مجمع international crisis وحيصوص صارن سنة بوضن بيكون مشغول سين waxaa jiray sanadka waxay ku mashquulsanayeen wadanka Soomaaliya lagu mashquulsanaa 100 page baa la qoray 100 page waxa ku qoran all islamic movements in Somalia wax alla wixii xaraka islaamiya ee wadaada ee Soomaaliya ka shaqeeya dacwo ka wada wala soo qaaday xarakaadkan tirada badan oo maanta maqashaan hebel waa kan aad maqlaysaan oo magacyada kala duwan markay soo ururiyeen mid u sheegan waxay dhaheen kulligood aad arkaysaan waxay dhaheen waa hal un kaliya إني وحنا كانن مد والبا وحي كان أنت سو إكزامبل إنك مركب دحدنا سيبان وكلا قيبسنا إنك إزديدا إنك واحد كان واصلا كوحدة سو عيارة كان نادي جالس قطي كان حاجة سو مركا إنك أساسا نوته لكن دتك بنانك الجوجاي سيبان نو أركان ولذلك النظرة شقين يسوى تنقفك خارجيك external view قفك دي بدك هاجوجا سو كو أركو أي حوك بس هذا سو أركتد معه هل كان مركب براروجين مركب ماشي هذا الهو هالضبا محل سمية مركب وحل يري
intuu maanta iman lahaa nin isagu gaala oo dadka soo dhex fariisan lahaa nin iyagoo kale ah oo duubkooda leh oo luqadii aanu soo barnay oo aanu ku soo habqinnay fakarkeenna oo xambaarsan fakarkeennan u diraynaa waxaa laga soo adeejinayaa xoogaa yar laba nin oo baasbooro meelaha ka soo qaatay kadib iyagaa imanaya iyaga fakarkaa gadaya uma baana ninkan inuu hub soo qaato inuu taangiye u soo qaato inuu diyaarada kugu soo weeraro uma baana guriga adoo fadhiya in adeerkaa baa kaa shaqaysanaya isagaa fakarkii wada marna meeshaasuu ka soo gelaya marna meeshaasuu ka soo gelaya mar xijaabkan tirada badan xoogaa waa laga fiican yahay qur-aankan tirada badan xoogaa waa laga fiican yahay isagaa kuu keenaya isagoo weli lacagtiina wata isagoo organizationadii wata isagoo iskuuladii watuu imanaya nin diyaarsan baa kuu imanaya fakarka waxaad arkaysaa hadba meeshaad u dabacsantahan waa lagaa soo gelaya ma dhaqaala daraa ku haysa dhaqaalihii jaabkaa lagu buuxinaya ma waxaad rabtaan marshal plan waddanka lagugu dhiso waan kuu diyaarinaynaa ma waxaad rabtaan halka baahima waxa idinka haysaa xagga iskuullada waan diyaarinaynaa ceelal in laydiin qole maad u baahantiin waan idiin samaynaynaa everything waa on table laakiin ujeeddada waa maxay ujeedka hal shay baa loo socdaa yaa missionka fulinaya missionka waxaa fulinaya aniga adigoo kalena fulinaya dad iyagu soo tababarteen oo wixii ay rabaan ay ku soo habqiyeen ay ka soo buuxiyeen nin waxaa ku imana programsan hard diskiga kore kuu muuqda waa Soomaali softwareka ka buuxana waxaa iska leh nin kale iska leh oo soo buuxiyay halka way halka meesha ka bilaabanayso haddaba wuxuu leeyahay markii uu hadlayay nin Faransiisa ay wuxuu ka hadlay Aljazaa'ir Algeria meesha lagu magacaabo wuxuu ka hadlayay sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay markii Faransiisku ay qabsadeen Algeria kadibna khudbad dheer buu qabsaday oo uu leeyahay wuxuu yiri si aan u guuleysano waxaan ku khasbannahay luqada carabiga inaan la dagaalano arag quraan hadda laga hadli maayo waxa la diidaya xataa the slightest connection with Islam waxa ugu sahlan ee qofka xiriir islaamku kula yeelan karo luqada carabiga horta iyada albaabada la xiro wararkaas nimanka Algeeriyaanka walaalahan markay carabi ku hadlayaan adigu waa shakinaysaa ma carabi ku hadlayaan ma wax kale ku hadlayaan waxay ku hadlayaan waa Faransiis iyo carabi oo la isku cajiimay wax kala ku soo baxay لا عربي كوسن هيسن ولا تي كلوسن هيسن ولا فرنسيس كوسن هيسن وحي لغا سو شقيه مانتا ميشا سمريسا ولذلك ارق وحا اد لو خوجيا مانتا 22 دولاد عرب ايا جيره دولاد waxay leedahay inta soo lahaja dialects kala duwan bay leedahay dadka waxa laga dagaalamay luqadii standardka ahayd fasiixa ah luqada carabiga ee fasiixa wala laga dagaalamay maxaa aad iyo aad loo xoojinaya waxa la xoojinaya lahjadii masaarida lahjadii urduniyiinta tii suuriyiinta tii falastiiniyiinta tii ahayd lahjada maxay lahjadu waa adoo af Soomaali ku hadlay oo waxba kuma soo kordhinayso laakiin qofka markuu luqadii ku hadla fusxada iyadu fadhiday tii quraanka ah qofka quraanka buu fahmaya oo sunnadii buu fahmaya oo wuxuu fahmaya cadawga meesha ay u socdaan buu fahmaya tiiba marka la diidaya wala laga hor imanaya ka soo gudub inta kadib maalmaha kamida laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala arag hagar walba loo maleegayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba meesha u taagan jalla wa ala waxa dhacday nin mustashriq waa qolyahan ay dhahan orientalist waxa lagu magacaabaa waa dadka barta daraasaadka sharqiga ah daraasaadka muslimiinta ay bartaan qofkii isagoo gaal ah ay wuxuu baranaya islaamkii tafsiirkii xadiiskii sida culimadeena ugu takhasusaan si ka badan buu u baranaya ilaa doctorate buu gaaraya ilaa buugag buu qoraya wana dad waaweyn xataa kutubta ugu waaweyn maanta muslimiinta dadka gacmahooda wax ku qoray ee aad ugu khidmay waxa kamid ah nimanka gaal way isaga shaqo kuma leh laakiin islaamku baranaya ninka mustashriqa hadlay nin mustashriqa wuxuu soo booqday meel la leeyahay wuxuu soo booqday Masar kadib wuxuu arkay nin sheekh Azhariya ninkii sheekha hadal baa dhex maray oo ku leeyahay nimankii annagu waan ka adkaanay takhtiidkii inta aan ku fakaraynayna maanta aanu ka sal gaarnay odaygii nin Azhari buu ahaa iskama waalin wiil yar oo meesha joogo 7 jiro yararkii maanta Allah inoo barakeeyo oo kala da'dooda intuu u yiri kaale quraan buu ayad buu aqriyay ayada u bilaabay kiiba aqriyay mid kale uu yiri ayad buu aqriyay uu yaabanay wuxuu yiri inuu dhageyso inta quraanka saa loo aqrinay buu inna wax naga ma qaadi kartaan isagana uu qirtay wuxuu yiri inti kaayar oo quraanka saa u dureerinay buu inta masaajida quraanka saa looga aqrinayo inta taraawiixda mikrofoonada la dheeraysanay buu inaga awood idin kuma lihin buu waa inta kaliya ee maanta inoo soo hartay bal wadankeena dib ugu laabo maxaa layna la damcay oo dhiba over the last 3 decades soddon sano oo xiriira ayaa maalinta ka dambeysay wuxuu nagu soo baxayeen laakiin ummadan muxuu Ilaahay ku baraariyay quraankaas way oo Soomaalida maanta in caalamka meelaha aanu joogno meel walba sida marka balad milyan xaafid in la dhaho
oo title-ka dadka Soomaalida ay qaataan quraankaas Ilaahay ku badbaadi maanta meel ka soo Yuruba meel ka soo America meel ka soo Australia masjid walba ku yaro Soomaali umba imaamka quraanka aqrinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhigiisa way inta quraanka aan saa u daba taaganahay oo inaga dhagan tahay yaryarkana aanu leen hal baro inaga waaweyna aan u soo xareysanayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel cidna nama dhigi doona biidin Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddaba waxa qariiba waxay dhahan waqti badan ma dadka muslimiinta gelinay laakiin inaanu ka sal gaarno ama wixii aanu rabnay aanu ka yool gaarno aad bay noogu adag tahay dheen waxa dhacday gabdhaha la soo xareeyay waxa la geeyay school Francis waxa inta laga dhaadhicinayay waxa la baray thaqaafadii culture-kii Fransiiska waxa la baray luqadoodii baalar waxba la qaray maalintii la gaaray qalinjabinta oo dadka saal la isugu keenay madal dadka dhan ay u dhan yihiin oo la yiri yaryarkii hadleen 10 gabdhood baa la soo istaajiyay inay hadlaan baa la 10 gabdhood ee saa loo soo tarbiyay Fransiiska ay soo tarbiyeen iyaga xijaab wada xiran oo aayada quraanka ku bilowday meesha soo istaagay waxayna intuu quraanna taagan yahay xijaabna taagan ummadan inaga kama guulaysan karno waxayna ka mid tahay waxyaabaha ajaa'ibta leh ee dadka muslimiinta maanta ay meesha ay gaaraan waxaan u gudbayaa marka qodobka kale ee saddexaad oo midka ugu muhiimsan laba qodob baanu marnay khilaafadii laga taqaluso ka labaad quraanka ka saddexaad waa akhlaaqda in laga dagaalamo maxaa yeelay Ahmed Shawqi ninkii gabyaaga ahaa gabigiisu wuxuu yiri inama al-umam al-akhlaq ايش ما بقيت ummad hadaad maqashid ummad hadaad maqashid there is a nation hadii lagu yiraahdo waa akhlaaq ummadu inta akhlaaq ku dhaganta oo xishood uu jiro oo anshax uu jiro oo usluub uu jiro oo sariigo ay jirto oo madax raaricino ay jirto oo hanqaltaag inta ay jirto ummadaas ummad la daa fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu laakiin maalintii akhlaaq la way ummadaas way ku deysay haddaba marka waxa la yiri maxaanu ka bilownaa akhlaaqdaanu kala dagaalanno akhlaaqda oo la isaga dagaalamo khatarta ay leedahay waxa muujinaya al-Andalus meesha loo magacaabo oo maanta loo yaqaan Spain iyo Portugal oo muslimiinta 800 oo sano 8 centuries ay haysteen oo ila الآن astaamihi islaamiga ah iyo islamic legacy uu muuqdo qofkii maanta tago arki karo meesha kaliya albaab kaliya laga soo galay ma ahayn kaliya hub iyo wuxuuna loo adeegsaday dhowr arrimood laakiin waxa ugu khatarsanaa markii da'yarta laga soo galay markii drugska lagu faafiyay markii sigaarka la baray markii zinada la baray markii anshaxumida la baray markii albaabada dacaarada la furay markii leerini walba xorriyad buu leeyahay maalinkaas laga adkaada dadka muslimiinta 800 sano ma inta ka dhow Soomaaliya markii islaamkeeda laga helay 700 sano ayaa lagu magacaabay 800 sano ma inta ka dhow yani arag hadii diintu ay soo jirto 1400 sano 800 sano markaad gacanta maamul ku haysid ma ka dhowda meel wax kaliya code-ka kaliya password-ka kaliya ee inta la taabtay la furay ee dadka muslimiinta qalcadooda ilaa shanayd lagu soo jibaaxay si sahlan islaamkii ama dhulkii ay haysteen looga qaado wax kale min akhlaaqda la dagaalamo waa halka marka ay ugu daranta walidaalika nin cadawga muslimiinta kamid ayaa wuxuu yiri saddex arrimood ila ogaada buu yiri yani ama laba arrimood ila ogaada buu yiri ka'sun wa ghaniya buu yiri koob khamra oo la ka bado iyo naag iyadoo jirkeeda beeciso labadaa shay wuxuu yiri waxay dadka muslimiinta iyo da'yartooda u geysan karaan in ka badan intuu madfac u geysan lahaa halkaad madfac iska qasaarin lahayd lacag ay kaaga bixi lahayd kaliya koox khamraana diyaari albaabada u fur mid iyadu qaawan oo meelaha taaganna u diyaari labada hadii la helo intaas waa inta ugu sahla maxay yeelay waxay ogyihiin dadka waaweyn ee da'da iyagu dan kama laha ninka kan isaga maxay yeelay program walba maanta loo aqriyo lama bedeli karo meel buu u batay laakiin ninka la bedeli karo waa da'yartiina idinkoo kala idinkana waxa la hayaa meeshii waxa la kala hadlayaa maanka la kala hadlayaa miskaha la kala hadlayaa halka shahwada ay ku jirto wax alla wixii marka ee fasaahada lagu soo hordhigay waxaana dhacday maanta waad arkaysaa takhtiidka isaga wuxuu noqon karaa jinsiga oo la faafiyo maanta arag waxaa jira millions of webs intaasoo waxaa jira mawaaqic oo sites baa jira oo loo diyaariyay exclusive design waa maxay inay faafeen pornography waad furaysaa dating naag ba ku soo dhacaysa waad furaysaa mid qaban baa soo galaysa waad ka baxaysaa mid kale ku dhiibaya mid kale hadan u gudbaysaa waxa arkaysaa tii liberty-ga ahayd ee maanta waxa doonti sameey waxa soo dhan yaa loo sameeyay nin weyn looma sameeyo
ilmo yaroo weli aan hanaqaad noqon gaarin looma sameyn ilmo fahmaye waxa loo sameeyay da'yarta loo sameeyay waxa la og yahay haddii miskaha laga soo galo maankan in laga qabsan karo labada haddii la isku helana in islaamka loo soo dhici karo islaamka maalinka loo soo dhacana waa halka cadawga u socdo way saa darteed wax kale lama qabto intaas un baa laga shaqeeyay innagana way noo sahlantahay waxa laga yaabaa midkaan inuu iska leeyahay meelo mawaaqiicun ma aragtay xoogaa la iska galgalo oo inta gal ka baxo inta gal oo ka baxo maanta in marka lagu shaqeeyo ولذلك وشيء لها وعنديه لها هلا اسك إلى مالها لكن وحن كبقيا سيد نيكي خطيبك هذا كهربو نبى خطبة دي مساجد استاجي وكهلا مركز حيري نواجه هو يدين دقيقة بيقولي قولي ماشى كويا البول أدريس كيس حاجة جاي هاي قولي قعد حلقة كحيجو كان عصن حاجة كسارن كان بلوجة حاجة كسارن لبعض اللوق أنت وده حيس قولي وحكويال ناجر كذا قتاء كجر اسك إلى السلام عليكم السلام عليكم مركل هالمرة اللي اسكو شوي كل واحد يمله محل يسقى بحي أدرس كوب بحي شيخ مكته وحي هدينه يرزين اسك إلالية هذا ده وبك اسك إلالية أيضا الله فديه اللي قليه محاضرات ولا قبل حياة بركوا باب كلام قليه المهم فسادكو وماشى الاسكالات قال لما جنسي وماشى أبو ضرون وحكوا آد حوق الله صارا قطاع اللي قوم على توريزمك إن لدلحيس تقول dalxiis marka la tago waxba kuma jabna fasiiru fil ardi ilaahay baa yiri laakiin wadamada muslimiinta dib ugu laabo waxa lagu bixiyaa millions oo aqli gal aanan ahayn in tourist la tago waxaan aad iyo aad uga naxsanahay meelaha tourism ay soo aadaan waagan Malaysia aan joognay dad fara badan oo wadamada carabta ka yimaadaan oo imanay qaarad nidaad ogtahay inuu muadin ahaa jiro aad arkaysaa ninkii dabagaab wato oo bahashi cabsan oo dhacay wad kana haysaa runtii maxay la meeshaas wuxuu moodaa in meel wax fasaad lagu qaban karo waxaan iska joogo dhowr qof oo jirkooda iska biicinay aanan wanaagsan meel walba waa laga heli karaa haddaba qitaaca tourismka in xoog la saaro in albaabada la furo in la yiraahdo waa la isaga dhex gooshi karaa wadamadaas oo kale visa ma baahna iyo wixii la mid waxay socotaba wuxuu yiri nin hadlayay oo rag u hadlayay nimanka ma aragtay iyagu ahlu khayrka ah wuxuu yiri maanta waxa la gaaray buu yiri dadka degan الضفة الغربية وماشى بوقا وكجرأ يهود waxay sameeyeen buu yiri dumarkii baa lagu soo fasaxay yararka iska dabaalanay xeebaha iska jooga ayaa waxa lagu soo fasaxayaa dumar sidaas oo kale oo jirkooda marka uu iska free u yahay halka marka ninkii maanta dhagaxa tuuri lahaa oo kelimatu la ilaaha illa allah qaylin lahaa oo qudus ka hadli lahaa markuu arko tanna uu la dhaco danin faashila ku soo baxay halka marka laga hadlay waxa kale oo iyadana khamradii iyo mukhadaraadka waxa lagu dabargoyn karaa 1 minute kuma qaadanayso laakiin khamra iyo mukhadaraat in wadooyinka lala istaago waliyaalika aad baan uga xumaa inaan soo gudbiyo maanta meelaha aanu ka nimid da'yartii aanu ku soo daalnay oo quraanka la soo baray waxaad arkaysaa markuu 15 jirsado isagoo bac yaro bahashi meel la taagan oo marka beecinayo waxaad arkaysaa iyadoo booliisku eriyanayo waxaad arkaysaa waalidkii oo khalkhalsan baad arkaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha soo celiyo kuwa kalena allah noo badbaadiye waxaasoo dhan waxaa laga shaqaynayaa maxaa yeelay haddii khamro iyo drugs iyo jaad iyo maandooriyaasha lagu soo badiyo dee nin maantana iska shaamshaam ah oo wuxuu og yahay aanan jirin oo ummad aanan u maqnayn oo reer aanan u maqnayn oo isaga aan isu maqnayn oo wuxuu qabanay aanan lahayn kaa maxaa ka filaysaa marka oo waxaa dhaca wey walidaalika arag waddanka iyo meel walbaba aad baa bahasha loo beeciyaa waa la soo geliyaa waxaana soo geliya dadkan iyagu leh waan ka hortegaynaa iyaga leh drug trafficking waa mamnuuc iyagaa soo gudbiya ilaa wax iskama soo gudubtee haddii meesha uu jiro aala sansara wax baaraysa haddii ay jirto boorsada maantana garoonka mar qof gudbiyo waa la baaraya wax walba waa la baaraya haddana waxaad arkaysaa intaasoo tan oo heroin inay soo gudbeen yaa soo gudbiye dad baa soo gudbiyay ujeedada waxaa loogu talagalay da'yarta in diinkooda laga habayo maanta waxaan hubaa dad wax aqriya oo muthaqafiina oo indhuhu u furan yihiin baa tihiin oo waddankan intaa ku soo raagay haddii microfonka lidiin dhiibo aniga intaan sheegayo oo 30 sano waddanka moogaa ka badan oo facts baad haysaan run ahaantii waan wadaagi doonaa haddii loo baahdo biidin Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay haddana waa la soo wada waxaa la yidhi aalad aan la aqoonin baaba tilmaan waxaa la yidhi satellite waxaad u baahan tahay hal midoo akhbaarta kuu sheegta iyo waxaad u baahan tahay mid yaroo aad ka ogaatid noocan ma meesha jawiga uu marayo meteorology waxbaad u baahan tahay laakiin maanta waxaad arkaysaa intaasoo kun oo channels oo wax fasaada mooyaan wax kale aanan jirin oo dacaaramayaan wax kale aanan jirin intee loo socdaa guriga uu kugu soo galaya بمجرد ريموت كنترول كأتابتيد وحكسا كوسا بحي هدبا إنجا هدانا مسلمين مما مولي كرنا موجدا حوجا كوسعة ساتلايتس كا موجدا حوجا كوسعة وبس مما مولي كرنا لكن واحد ما مولي كرنا أخلاق ذا قفك إلا برا
وقفك إلا بر ولذلك يركب على الوتر بيوحل له integrity ولله بقى كوجيدا مركات كلجة تهاي مركات سكول كجوكت وين برنا وين كإلى لأنه مثل بوجيله إنه نويم هذا ولذلك اللي بوجيله إن النقطة خطر النبي صلى الله عليه وسلم حديث خطر لا يدين شيء ثوبان بوحوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بوحوا يوم القيامة وحاجري دون الرج لا إيمان دون أعمال آدية تربضا مركز النبي يقول في عماشة وحي بضنان أي كقبته وحكوت الماء سيدا بوره كله وحي قروح كقبتنا وحكوت الماء بورة تهامة بورعت وحي عماشة بلا إيمان يعني لكن الله سبحانه وتعالى يضرب ربحه كبس وقاضي عماشي وحي نقونا سيغو يهباس يبور يبسك عليه نقونا يسابر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان حديث كوريني أي مركو مغلى النبي قال يجعلها الله هباء منثورا مركو مغلى انتو سوب وذوحي يا رسول الله صفهم لنا نوت المان جلهم لنا ربي رسول الله نو واضح من وحن كبقي نابيري إن نكم منها ذاتك تكور رميس إننا إنا نقول نبي حديث قيبتو كير بركة دقيست مركز أما إنهم إخوانك ولا له ومن بني جلدتكم مقارك يضوبك يهرق لديهم بالليل مقلدين الليل صومالي ملتاغن محوها سوري ملتاغن سوداني ملتاغن وينك وكلا مركز النبي يقول الرعي ويأخذون من الليل كما تأخذون هبين كان وقتك كذا سلة الليل بأودر ويتو كذا لكن هل كان ويهلك بلايد ويكد على مركز ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وضد مركي أي لك اليوبان عاقنياش إلهي وحو إلهي الرابي إيجا مركي إسلك النقضان وحي دونا كيالا ضدك مركي الله وضع فردية سانا وكال هذا دي أن الشدنو مارتي كمبيوتر كأما تي في قال الشدو أي ناقو أي صباح دني والمحو ليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقل لي حسامه لكن مركا ضدك أي كلا تجانو أديك قلك كوي حرين لك مركا سيس محل هذا فولك كوشي ده ستوما فولك كوشي ده سا نين إندونيسيا هذا كروح وده النبي صلى الله عليه وسلم صومدي الحديث النظرة الأولى لك والثانية عليك كو مركي أي ناكا صهر بحض أما وح ممنوعة تنكوال لقوم حسابه إلا إيش هذا كل عدم وقت لكن مركز سوجي ستيد مرلوات كلها بتيد ما محي دم بيصمها إلا ذا وقتها وعير شاق وكور هدان فولك سفع نسقش التوي إلا كوبي إيتاجنتها أم بلحن مركا النبي يقول لي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وحي دونا بكيا لنبي وحال قرر مركا سيدا مركا اللي بيقول هذا ماشان كاميرا كوحرا أدوب بقيسيد أما يقول هول باكو جيدو ورادع اجتماعي وكو علينا أي وحال ربا كليقا مركاته واتن أوليه نيك شاعرك إذا خلوت بريبة فلا تقل خلوت ولكن خلوت وحاتر هذا إلهي سبحانه وتعالى إذا جري إذا ما خلوت كليقا هدان نقطين هدين كليقا يبانا لكن إلهي سبحانه وتعالى وإيجي ذا وحلقة بها كليقا ما إيهد إله باك ولا السعودة مع الله جل وعلا هل كان مركب وقضبك أوكي UBA 147R UBF 176H. However, that is our although UBF 162F, UBF 106S, UBF 446H, UBE 272B. Because of our تعليمنا تلقى وسيلة فمني نعرف السمين ولا من نعرف يوم من سواء الجوال haddaba waa la wada waxa la yiri nimanka evangelist ah way hadlayna waxay dhaheen inagu ma barabnaba dadka kan inaanu ka saarna islaamka ama masiix waxay macnaha inaan masiixi ka dhigna danteena ma laakiin waxaan rabnaa qof qalfoof ah oo masaajidan iska dhex taagan oo sawir ah masjidku soo galaya quraanka uu aqrinaya wardigu aqrinaya jumcay jamaa wuu taagan yahay laakiin inuu noqdo fully disconnected with Islam nin aan shaqaba islaam ku lahayn kaasaan rabnaa magaciisa waa cali waa maxamed magacaasuu leeyahay quraanka wuu xifdisan yahay hadduu doono masaajidku ku jira laakiin ribo ma kala jeclo zino maba kala hadli kartid khamro ma kala jeclo waa ninka hadda ka hor ninba waxaan yidhi ma kitaab albay' baan bilownay
bal ma soo xaadirtay wuxuu yidhi diinta haddii la dhegaysto wax kasta xaaraan bay ku leedahay marka inaan la dhegaysan baa la qaataa buy dukaan buu lahaa يعني يعنى ونكان هذا أوه صف كهرة ونقول عريريا وان أهل خير مركات في رئيس لكن وحده ديدين هاي صلاة وأقوله أو صانك وأقوله أو زكاة وأقوله لكن وحده ديدين مركي تاجنته transactions معاملات مركي تاجنته إسلام كأنه شققوا يا شمربه إلهي نوحي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قفك وإنه الدعيسين إلى إسلامك وحربا مركان مهرسانين وإسلام مركان فري وإسلام oo aan wax furayo marka aan quraan aqrisanay waa islaam marka aan wax la xukumay waa islaam marka aan wax beecini waa islaam marka wax soo gadan waa islaam udkhulu fi silmi kaafa daraf iyo dacal meel walba waa in islaam ay noqoto laakiin islaamka ani waxaan rabaa boqolkiiba konton baa kaga jiraya hadda ka hor waxa la sheegay nin baa masaajidku soo gala waa dadkan ma aragtay ay dhahaan Jamaicanka masjidku yimaada wuxuu wataa xabadka waxba ugu saaran meelna wuxuu ku wataa bilbu wata oo islaamka uu ku tilmaamayo wuxuu wataa tii crosska ahayd mucatabkii saliibku wata oo kristaanka tii wuxuu wataa yahuudda wata tii hinduuska wata kulli uu wata xabadkii ugu dhageeyay war waa maxay wuxuu yiri diin walba boqolkiiba 10% baa kaga jira wuxuu mada business oo kale boqolkiiba 10 baa kaga jira biir waxa lama hubo buu dhahay marka it could be the salvation wuxuu ku jiri karaa kulaha christianity-ga wuxuu ku jiri karaa judaism-ka mar walba meel walba masba waxa la yiri maxaa saan ugu socotay wax ku dhaafin وحريه wax ku dhaafin baan isleeyahay biir waa intaas xagga mid kale kaaga soo baxa isaga markuu xiriir meeshana boqolkiiba 10 intana boqolkiiba 10 business ba $2,000 iyo $3,000 buu ka dhigay wala kullin juhudan waxay dheen annaga ujeedadeena maaha nin masiixi laga dhigay laakiin ujeedadeena islaamkana laga soo wado masdiixin iyo la geyn ka soo gudub qodobkaas waa qodob isagu nala dheeraan kara waxaan u gudbaynaa marka akhlaaqda laga soo hadlo waxa aad iyo aad loo ajaa'ibta leh nin iska tabaalaysan oo baahi ay hayso meel uu ka bilaab aan lahayn ayaa la leeyahay maanta waxaan kaala hadlaynaa arrimaha weyn oo issues aanu ka bixi karin burburinta akhlaaqda waxa kamid ah albaabadan maanta dadka loo furay oo la leeyahay okay muslimiinta wadamadooda inaan ku soo duulno soo maaha dad la tababaraa loo baahan yahay albaabada la furaya waa hadda midaan weydiiyo wadan kale inaan ka hadla marba kaliya Soomaaliya ka hadlaya last 30 years soddon sano ugu dambeeyay wala tahriibay Soomaa مرة waxaan maqlaysaa baasaboorada waa la diiday inkastoo horta waxaan ka cudur daaranayaa hadda ka hor baa meel muxaadaro u tagay Afrika kamida waxaan rabay inaan dadka baraajuxir sheekh wixii tahriib iyo baasaboor la qaadanaa ka hadlin baab kala gal baabka naga jooji baxar buxur waaye lama galab wiil marka hadda kaas hadda kama hadlay laakiin waxaan ka hadlay wax yar inaan tilmaamo soddonkas in la baxayaan ogahay moogta soddonkas sana markii ugu dambeeyay waa la baxay mar walba waxaad maqlaysaa dada galay Sweden baa hadda dadka goranaysa Jarmal baa goran xasan maqlaysaa maxaa albaabada looga xiri waay wax kala maaha horta meeshan ma xirmayso dadka way tagi doonaan waxa la rabaa in la nagu soo diyaariyaa la rabaa waxa la rabaa in thaqafada cabsan in meesha la keeno oo la soo diyaariyo kadib wadamada muslimiinta ay ku soo laabtaan walakin wax ku barta kan meesha wax ku barta meeshiisa iska joog waa la soo diraya howlahaas marka shaqeynay 30 ka sano dadku isku mid maaha ninna ilaahay immunity system buu siiyay ilaahay islaamkiisa ku dhowray waa nin marka geesiisa la soo baxay midna bifadlillahi jalla wa ala si kale meesha isaga soo hijrooday midna way dubatay halkaas ay la hartay halka dibka meesha uu ka jiran waa inta yaani yarirkiinan uquusha la isticmaalayo ee la raba in la duufsado waa idinkoo kale waa inaad fahamtaan waan dareemi karaa duruuf adag baa jirto maanta hadii hadda lagu yiraahdo meesha uu noqdo duruuf baa ku soo qixisay laakiin ogow inay wax ka horeen cala aqal hadaad meesha tagaysid adoo diyaarsan oo indhaha ku furan yihiin oo faqfaq meesha aan u tagin qof niyadada dacwo aad ka dhigtay adoo marka wax bartay adoo ummadda wax u qabtay adoo noqday boostoole khayr xambaarsan oo shar xambaarsan waa inaad noqoto shar waa inaad xambaarsanay inta ogow anu طبعا markii ugu horeysay way aan Uganda imaado run sanadkan ay ugu horeyso laakiin hadda ka hor baa marka jaamacadan dhameynay baa mid wuxuu yiraahdo Yurub ku geeyaa buu dhahay inuu xambaaru rabo ma soo sheegay markaas waxaa yiri maya hadda diyaar maya waa lagu geen karaa wuxuu yiri aragninka 1 minute uu geey Yurub anoo meesha taagan wuxuu yiri dhag inta laga wada dhag xagga lagu wada dhag waa ka baxaysa dhag Uganda joogtaa bir dhag Canada joogtaa bir waa 1 minute 3 dhag buu meesha uu geey hadda adiga waxa laga yaabaa 5 dhag inay anta ku keentay laakiin dhagta kale inaad gaari doonto Ilaahay baa og laakiin niyadaada wanaaji bi idin Ilaahay subhanahu wa ta'ala taqdiidka kale ee shanaad wuxuu yahay القضاء على وحدة المسلمين urusanaanta muslimiinta iyo midnimadooda in la dagaalamo maxay yeelay waxay dhihi jireen
united we stand and divided we fall inta aan saa u urursanahana awood baan leenahay mar kala jabana oo dadku kala qubtaan awoodan way tagaysaa mar rabo maxaa yeelay xikamta ummadahu ay leeyihiin ee maaha iyo murti iyo waxay doontaan ha noqotee midnimada iyo dadku inay meel wada joogaan qof kasta uu xifdisan yahay cadawgana intaasuu ka shaqeeya mabda waxaa jira lagu magacaabo divide and rule farriq tasud si labadiina aan idiin maamulo waa inaan isku kiindiro adna waad dhegaysanaysaa isna wuu dhegaysanaya laakiin labadiina inta aad wada socotaan aad walaalaad tihiin oo wixii aan sheegay isku sheegaysaan ma maamuli karo taa way tan wadamada muslimiinta lala soo galay oo maalintii la burburiyey chemistry isku hay wadamada muslimiinta wixii isku hay markii la burburiyey oo ah khilaafada muslimiinta la burburiyey oo wadan walba la yiri adaa ismaamulaya ayaa haddana wadankii loo soo dhaadhac wadan walba waa la sii qaybiyey mar raba inaan dib u dhaadhaco ama aan ka hadla maasaadka idinku aad ogtihiin ama wadankeenu u marayo meel kale u marayaba hatta waxyaabaha ay sameeyeen waliyaalka wuxuu yiri nin lagu magacaabo Simon oo hadlay wuxuu yiri muslimiintu inay united noqdaan waa the only hope that appears in the horizon waa rajada kaliya ee u muuqan karta dadka muslimiinta wuxuu yiri si ay uga badbaadaan muquuninta kaga iman karta quwaadka galbeed ee shisheeye muslimiintu way ururayaan markay urursanaadaan oo ay noqdaan dad saa isugu duubanna waxba laga ma qaadi karo wixii annaga markay ujeedada waxay tahay san iyagu kala jabin lahayn waa tan maanta bilaabatay ko muslimiin meel ka soo wada jeeda la kala jabiyay suuri falastiini soomaali suudaani baa la sameeyay wala soo dhaadhacay suudaan meesha inta ay u qaybsamaysa maanta arag meesha ay marayso soomaaliyana in lagaga sheekeeyo maaha wadan walba taftiid mufattad mid isaga burbursana la sii burburinaya waxay ka mid tahay waxyaabaha ay ka shaqeeyeen way haddaba ilaa la gaara buu leeyahay waxaan la leeyahay watan waxa laga hadlay watan yani nin walba la baro wadan muslimiin laga hadlay laakiin wadankayga patriotism nationalism hebel waa Soomaali hebel waa Suudaan inta lagu cufo waxa karana iyaga marka ka takhalusi doona halka waxay ka mid tahay ilaahayna quraanka wuxuu leeyahay in hadhihi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum fa'budun wa in hadhihi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum fattaqun la amalbu ilahi subhanahu wa ta'ala kulli hal ummad baatihin aniguna caabuda waxa la inoo sheegay wahda oo ah inaan hal ummadna waxa la inoo sheegay hal rabbi inaanna waxa la inoo sheegay hal meel inuu ka soo wada jeedin waliyaalka markii ay ku guuleysan waayeen holahaas oo dhan maxaa la sameeyay waxa la yiri waxaanu sameynaynaa okay diintooda laga ma bixin karo Soomaha isla diinta islaamka aanu soo galnay waxa la sameeyay wax lagu magacaabo ee maanta ku magacaaban interfaith muxuu yahay waa programyo meelaha joogtaan meel walba leh waxa diimaha oo dhan la isku keeno waxay maanta dhahaan policy Americanka all religions in one bowl hal baaquli hal weel lagu rido diimo dhan la isku keeno maxaa la sameeyaa hebel waa juday Jewish waa Judaism ku dhagan yahay laga daayo kan waa Christian hal meel la isku keeno waxa dhacda marka waqti aan saa u sii fogeyn ayaa waxa la isugu yeeray urur diineed ko dhan baa la isugu yeeray waxa loo yeeray niman Yahuuda waxa loo yeeray Masiixiyiin waxa loo yeeray Hindus waxa loo yeeray muxuu ahaa Muslim waxa loo yeeray Confucianism midka waxa loo yeeray Taoism diino dhan baa meel la isugu keen kadib waxa la tukanaya horta waxa idinka halmaamay waxay yiraahdeen waxaan ku hormaraynaa kow waxa loo yaqaan heavenly religion diimaha samaawiga oo Yahuudda kow ka tahay Masiixiyiinta ay ku xigeen muslimiinta ay saddexdooda horta ayaa meel isugu keeneen maxaa la sameeyaa wala wada tukanaya kow Yahuudda maadaama diinkooda u horeeyay nin Yahuudi imaam noqonaya muslimkii iyo Masiixiyiin ku daba tukanaya wal salaadii waa dhamaatay isla meeshii la jooga haddana Masiixiga imaam noqday waxa ku daba tukaday Yahuudiga iyo kii kale ee muslimka ah haddana waa laga baxay mid muslim oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kor ka soo reeda watiini wa zaytuun baba la hor istaagay meeshuu taagan yahay kuwii kale way ku daba xirteen haddaba masuurtoobaysa adoo muslim inay Yahuudi ku xirto salaad tukanaysa masuurtoobaysa nin saddexda gees tilmaamay inay salaad ku xirto masuurtoobaysa kuwan gadaashada taagan ee kugu salaadayna salaad ka bixis masuurtoobaysa فكركاس وحافلي رج مانتا معروفة ومقع عالم وتا العالم الإسلامي مرموقين مالوا وين بوسيوني قبطي درجات بدن جاري أيام مانتا مسؤولك وحد ما داينس وحبا هين ويكون سهلانت ور إلهي يحير لكم دينك اليدين ويكلا بحسنت إلهي يحير إن الدين عند الله الإسلام ويكلا بحسنت إلهي يحير وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين إلهي يحير أفغير دين الله يبغون هذا صرنا المصمم والجنيان وردين تنا ماشي ذا لكن أنا أسمع كذا درة هل كاوي هل كلاش شقين مركل اللي أجادي هذا إنا لقاش شق كرين
oo aan laga bixin karin ayaa waxa la yiri waayahay xoogaa aan baraxna bal xoogaa yar hal baraxno sidii kii marka aan ka sheekeynayno kale inuu noqdo way soo socotay waxa kamid ah qodobka kale ee shanaad aan ku soo khatimay wuxuu noqonayaa waxa la yiri hayba diinka shaki ha laga geliyo waxaan ma shaqeyn waayna hala shaki ha la geliyo waxa yimid marka manahijta la isu dhigo ama curriculumka wadamada muslimiinta la geliyo si qiyaxan looma dhihi karo diintu waa saas ama diintu waa in la duro macquul ma laakiin maxaa la isku dayaa waxa la isku dayaa meelaha xoogaa yar ee qofka aan waxba aqrin ama aqoontiisa diineed aan saa u sii qodnayn ayaa waxa la isku dayay in xoogaa yar shaki yar boqolkiiba hal la geliyo arag hadda meel kale ha aadin annaga wadankii iskuullada waxbaan ku soo dhiganay sooma taariikh islaamina waa naloo dhigi jiray iskuullada dugsiga dhexe iyo taariikh islaami maxaa naloo dhigi jiray waxaa lanoo dhigi jiray black pages of Islamic history qaybaha markii dagaalkii cali iyo ma aragtay Uthman goobtii ratiga ma aragtay markii saxaabadu ay isdagaaleen baan laga sheekeynay haddana maanta markii laga sheekay dhiig daatay markii laga sheekay saxaabada isdagaashay markii laga sheekay raggii aan modelka noo ahaan lahaan ku dayan lahayn cali iyo Uthman ba isdagaal markii loo sheegay maxaa qalbiga soo galay adiga ama markii science markii loo dhigay darwinismkii la inoo sheego ama noocan markii physics loo dhigay wax la inoogu soo qoriyo waxa la yiraahdaa dadka kan si cad oo bareera inta la soo hor istaaga lama dhigi karo islaamka ka baxay xoogaa shaki aanu gelin shakiga wuu socday waxa yimid fakarkii secularismka aanu ka hadlaynay waxa yimid kii liberalismka ahaa qofka ibaaxiye xor baata adigu waxa doonta samee si u soo socotay waxa yimid fakarkii maanta atheismka oo qaybta ugu khatarsana atheismka waa ilaah diid inuu qofku yiraahdo ilaahay ma jiro maanta in yar hadaan idin la wadaago jariidadii ugu dambeysay ee meesha fi العالم العربي مثلا لسمي دار الافتاء المصريه بقبتي يا سميسي ريسيرش كان waxay leeyihiin مصر waxaan hadda ka nabalay waa ma hadda mar hore waa 2014 866 atheist oo ilaah diida ayaan haynaa Morocco waxay qaratay ilaa 325 Tunis waxay qirtay 320 Iraq waxay qirteen 242 Saudi Arabia waxay qirteen 138 Urdun waxay qirteen ma aragtay 70 السودان waxay qirteen 56 Suuriya 34 ma aragtay Yemen waxay qirteen 32 طبعا waxaan ka hadlaynaa waa 2293 atheist wadada muslimiinta waxaan ka hadlaynaa out of 400 million oo dadka meesha degan ee wadamada carabta degan waxa soo dhan waa 2014 mawjada atheismka ama ilaah diidka ma xoog badnayn 5 sano ka hor maanta heerka ay marayso waxaad ku aragteen maqaatiicda la isku soo dirayo nin la soo taagan organization ay leeyihiin doodo fara badan Soomaalida mulxidiinta Soomaalida saana inta soo dhan waxaad arkaysaa meel kasta ku qoran ilaahay amarkiisna umadaha kale qalabkan maanta la isticmaalo social media loo yaqaan umadaha kale wax khayr kaga faa'iideysteen meel waxaad arkaysaa lagu barto mathka meel lagu barto physics meel biology lagu barto meel diintooda ay ku bartaan waxba lagu bartaa dad badan khayr u adeegsanay waa jirtaa hadda khayrka kan waan sii gudbinayna laakiin inaga waxa moodaa haddaan nahay Soomaali da'yartana ma aragtay wadankeena waxaad moodaa in meelaha xun maantanan nin weyn inuu furo ma aragtay qolka garoobada maxaa ka faa'iideysaa garoob ama aroos ma ka tag waxaas igu darnaa markii la yiri qolka naagta hal dalqa lagu soo furay tan labada dalqa ka ordaya hal dalqa lagu soo furay mid saddexda ay ka dhamaatay ninka saana kan la soo buri waxa soo dhan yani ummadda waxay barataa wax la taaban karo tangible things mashaariic lagu soo kordhin karaa waxaan oo hadda ilaynoo maleegay sidii aan uga hortagi lahayn waana ka shaqeyno maxay la saxaabada rasuulillah sallallahu alayhi wasallam dad idinkoo kala saa u daayar bay ahaayeen islaamkii u fakareen islaamku u socday buu bari wuxuu ka dhacay xagga iyo wadamada bari buu aaday oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala Indonesia meelaha soo aaday xagga Yurub buu aaday dad yaryar oo daadiina ah ayaa islaamka dhabarka ku ritay laakiin aniga aqliga markan ku soo koobo khamran cabaya kan waan galaya moodadan raadinaya maxaa maar ka soo baxay wadankee loo tahriiba war aqliga kan waqtiga aad ugu aqli badan tahay ku jirta arag ilaa 15 sano waxa ma marfuuc alqalam baa ilaahay ku yiri 15 sano ilaa 25 sano waa inta shahwada la herdameysto 25 iyo 35 meesha ka gaarsiina waa marka qofka uu noocan ma ninka uu dhaqdhaqaaqo oo maskaxiisa uu ka shaqaysiyo oo uu ordo ilaa 40 waa marka uu dhaqdhaqaaqo shaqaysanay haduu jaamacad ka bixi lahaa
فوري مركي اللي جارنا قفكي طبعا وضماد أنك أن جوجنا ورقة بابا كوسو على أفرتن سنكرت إسكا إلالي سريد إسكا إلالي صبحي أرد هبينجي إستاق والو إنا فينش هاس أسعتيد بالله دريمي يا صوما يعني ده هذا سا إسكا أو لحدا يتضبط أنك قفك جارنا وسكلا ونقونه ليش ما هذا عقلي كان وقتي يعني دو جيدين أنا وحن قياسي ده أكو جرتان عقلي هذا شقيني هذا إسلام أفكري كرتا هذا الله فاهم أفكري كرتا هذا فاميلي كفكري كرتا هذا إسلام كحكوسو كردين كرتا وحنكوسو ختمي كلمة دي الرافعي في وحي القلم أمر لما لها كشة وليه إذا لم تزد في الحياة شيئا كنت أنت الزائد عليها هذا النرش وحكوسو كردين أضع ولا يكون نقني قولك كان إله يري فمشوا في مناكبها وكلوا من رزق عليس بكون نقنيسا كما قاعد يكر محل أمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قولك ير ورمانة يقدوا ما قاعد يكره سمدي بديدي أو بوري بديد هذا دبرك أوريتي هذا هذا أمانة دي وتا أو أذن جودني باربتا قولك إن تكدل سعتيد أو سمدي هوس هرستيد أو الرابك كان أتوقع بيست أو حربتا هذا درتي إن أنت معقول ما وإلى هنا بالله التوفيق وجزاكم الله خير